السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Maalmahan waa maqnaa YouTube waan ka maqnaa muddo ku dhow hadda bil siyaabo jira awgood, balse hadda waan soo laabtay waxaana soo gudbin doonaa muuqaaladii aad horey kaga barateen oo ahaa dhankaas iyo tiknoolajiyada. Haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta ama aan inka siiyo sharaxaad yar, muuqaalka aan maanta idin siido wuxuu ka kooban yahay laba sir oo ay tahay inaad ka ogaato taleefankaaga haddii uu yahay mid Android ah ama haddii uu yahay mid iPhone ah. Midda koowaad ayaa waxay tahay markii aad ka soo dejisato Play Store-ka ama App Store-ka application oo aad rabto inaad saaxiibka u turto, markii aad u turto ka bacdi oo aad dhan walba haddii aad ugu turto si walba ahaato haddii aad u turto, markii aad u turto ka bacdi application-ka uu u shaqeyn waayo saaxiibka uu dhaho daan ama siyaabooyin kale, hab fudud ayaan kaaga hayaa. Sirta labaad ayaa ah ma ka cabsi qabtaa in Gmail-kaaga ama taleefankaaga xogtiisa la ogaado iyadoo la soo raacayo Gmail-kaaga? Ma ka cabsi qabtaa in sirta mobile-kaaga la ogaado? Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, midana waa ku muhiim. Haddaba haddii aan u guda galno muuqaalkeena maanta. Haddii aan u soo laabano muuqaalkeena maanta, marka hore sirta koowaad haddii aan ku sokayno ama aan ku socono, waxaad raadinaysaa Chrome mobile-kaada aad imanaysaa. Fadlan haddii aysan Chrome update ku ahayn waa in update soo dhaataa. Marka aad ku dhufato ka bacdi gudaha ku keento Chrome sidan ay gudaha kugu keento ka bacdi waxaad ka dooranaysaa qaybtan kore ee 3 dots ka aad ka dooran doontaa. Ka bacdi waxaad ka sii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay settings aad ku dhufanaysaa. Qaybtan ay ku qoran tahay settings markii aad ku dhufato wuxuu ku keen doonaa Gmail-kaaga ama goobtan ayuu sidan ku keen doonaa. Ka bacdi waxaad ka raadinaysaa qayb ay ku qoran tahay safety check aad ka raadin doontaa. qaybtan ay ku qoran tahay safety check markii aad hesho ka bacdi waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay check now aad ku dhufanaysaa. Ka bacdi marka qaybtan ay ku qoran tahay check now ku dhufato saddexdan tick ayuu ku soo saari doonaa, balse haddii ay jiraan siyaabo ama in laga jabsan rabo ama la ogaadayo ama la ogaaday xogtaada sidan tigtan kuma soo saari doono oo wuxuu ku dhihi doonaa something wrong ayuu ku dhihi doonaa, waxba qaldan ayuu ku dhihi doonaa. marka sidan u dhufat hadduu digto ku soo saaray wax ka qaldan ma laha, shakigana uu ka bixi doonaa. haddaba haddii aan u soo laabano sirteena labaad ama haddii aan u soo laabano sirteena labaad waxay noqonaysaa in aan marka hore tagnay Play Store-ka markii aan tagno ka bacdi waxaan ku dhufanaynaa qaybta kore ee iconka Gmail-ka kaaga muuqato ayaad ku dhufanaysaa. ka bacdi markaa qaybta ku dhufato waxaa ka sii dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay Manage Apps and Devices ayaad ku dhufanaysaa. Manage Apps and Devices markii aad ku dhufato ka bacdi adigoo aan isweel waxaad ku dhufanaysaa qaybtan Send ayaad ku dhufanaysaa. Send markii aad ku dhufato ka bacdi waxaa ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay Continue markii aad ku dhufato ka bacdi wuxuu ku dhihi doonaa location ayuu ku dhihi doonaa. Location-ka ayaad furi doontaa. Location-ka markii aad furto ka bacdi sidan ayuu ku saar doonaa oo wuxuu ku dhihi doonaa Send Apps ayuu ku dhihi doonaa. saaxiibka ayaad halkan ugu diraysaa application-ka Send Apps marka uu ku dhaho ka bacdi application-ka aad rabto in aad qofka saaxiibka u turto ayaad ku dhufanaysaa. ka bacdi waxaad dhahaysaa qaybtan ay ku qoran tahay Share-ka ayaad ku dhufanaysaa. ka bacdi markaa sidan dhahdo ka bacdi saaxiibkana waxaad dhihi doontaa waa inuu furtaa aska Revis Apps and Google Play and their device waa inuu kusoo muuqdaa ama WiFi-diis uu furtaa. markuu WiFi-da furto ka bacdi halkan ayaad ka soo qaban doontaa, halkan ayaad ugu diri doontaa fudud. fadlan haddii uu muuqaalka ku cajabiyay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarato, gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada muhiimka ah ee halkan kusoo gudbiyo.